bilaabo si loo mideeyo Soomaaliya guud ahaan. Madaxweyne Biixi waxa uu ka jawaabay hadallo uu sheegay inay ka soo yeedheen madaxweynaha Soomaaliya. Waxaanu madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi barbar dhigay madaxweynaha Soomaaliya ee xilligan iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday taariikh weey hore dhacday. Madaxweyne Biixi oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi dowladda xawar maanta ka dhisan inay fadhi kala wado oo wiigi ay 10 cisho wareegayeen laba jeer hadda waxay ka hadleen golahooda dhexe daraato fariistay waxay yiraahdeen wada hadaladii dib Soomaali loogu mideynayay baan ayaa la ambaqaadaya oo Somaliland waxa loo hadlayaa si Soomaalidii loo mideeyo waxa weeye mar hadii aan gumooyo garad ku kordhay waa mashkalad gumooyo hadaan garad ku kordhay waa mashkalad qolada xamar ku jirtay wasaaradda xamar waxaan leeyahay soddon sano oo heegan iyo dagaal iyo muran ahaa mid afeed mid doodeed mid qoriyeed 10 sano halgan humaysan ahaa iyo 27 sano ay Soomaaliland xor ahayd ninka maanta yiri waxa uu sharayaa inaan soo mideeyo soo celiya dee aqli male garasho maaha madaxweynahoodu waa hadayo wuxuu yiri kolba ninkii Soomaaliland necab cadawgeeda u tago oo hubiya ka qaata oo dabeetana Soomaaliland googooya aad iyo aad baan la yaabay aqli gaabnida ninka dhan madaxweynaha ah waxa uu ka fikirayaa wadadii Maxamed Siyaad ka fikirayay 1988 Maxamed Siyaad Barre 1988 markuu halgankii jabhadihii SSDF SNM SPU ummadii isaga ku gadootiray ee markay ka weyday dimuqraadiyadda Maxamed Siyaad Barre qoriga qaadatay min Kismaayo ilaa iyo Zeyra ayaa wuxuu yiri waa la igu soo dirayaa Mingisto u tagay markaas uu Mingisto waxa la xadoonta waan ku saxay joodaha iga qabo Mingisto iyo Siyaad Barre oo adisaba ku wada caawinaya isla hargeysa burca ka ciidanay berbera markaas ay dalkeeda xoreysay SSDF na waxay ka walaacay gaalka cayay iyo boosaaso dalkeeda xoreysay SPU na xamar buu caydid ka bilaabay markaas uu ilaa Kismaayo socday aqli laawe hadaan adigu ogeey wixii dhacay miyaanad cid wareysan maanta leedahay Soomaaliland dib u mideynaya madaxweynaha Somaliland ayaa sidoo kalena waxa uu ka hadlay midnimo Soomaaliyeed waxaanu sheegay in dadka Soomaalida ay ka mideysan yihiin waxyaabo badan sida afka diinta ganacsiga iyo dhaqanka waxaanu xusay in aanay muhiim ahayn in laga midoobo dawladnimada waxana hadaladiisii kamid ahaa Soomaaliya way mideysan tahay afkay ka mideysan tahay diintay ka mideysan tahay dhaqanka ay ka mideysan tahay wax qabsiga iyo ganacsiga iyo waxbarashada way ka mideysan tahay laakiin talada iyo maamulka iyo gobolnimada ku kala duwan tahay caalamka oo dhan waa cayka marka ma waxaad ku fikiraysaa 30 sano wixii halganaa waxa loo soo maray maanta ka joogta riyo koowa inta xamar ku jirta aad tiraahdaa waxaan mideynayaa Soomaaliland si aynaan ku kala baxayn oo aynaan ku kala garnaqsanayn oo wixiina gaaray aanaan ka magdhaweedi laga bixinayn oo aynaan ku garrabayn midnimo iska daaya ku aan wixiina gaaray laga magdhaweedi soo marmayno inaan ku lugayno nin waliba taa maqlo talabaad waxa la markaad Kismaayo baydhabo iyo gaalka caye iyo jawhar midaysiya xamar markaas aynu hadli doonaa horta Soomaaliya kuwa kula jooga meelgee horta xamar midee xamar badkii mucaaridka ahaa ku leynaysaa guriyihiisii xamar bad garaacaysa cadow u soo karaysanaysaa kay kula hadla adigoo ajnabi ku ilaaliya baad soo go'aysaa waxaan leeyahay halka xamar aqli ma jiro inagu dalkeena u dhisanayna horumarkeena ka shaqeynaa markaynu horumarkeena u shaqeeyno walba isaga inoo baahan markaynu wada shaqeysano ay hawsheena qabsano walba isaga inoo baahan oo imika ba caalamka oo dhan waa nala jooga iyo wax soo socda weey waa yuhunteena iyo midnimadeena markaynu wax qabsano madaxweynaha Somaliland ayaa hadalkan u jeediyay kumanaan dadweynaha ku dhaqan caasimadda Hargeysa oo ku soo dhaweynaya bariga magaalada Hargeysa kadib markii uu ka soo laabtay socdaal uu ku soo maray madaxweynuhu gobolada bari ee dalka Cabdikariim Saciid Saalax telefishinka Cable Hargeysa.